السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaaleyga qaaliga waa idin salaamay waa walaashin Hidaaya Xasan janalka naga daawanaysan waa Hidaaya Xasan walaaleyga qaaliga waxaan leeyahay like-ta commentiga subscribe-ka intaba layga baqiilin waa walaashin oo rabto khayrka inay idin wadaagto insha Allah marwalba waxaan jecelahay wixii noo fiican iyo wixii farxad leh inaan idin wadaago hadduu ilaahay awood badan ka raali noqdo marka walaaleyga qaaliga ma waxaan idin wadaa arin oo muhiim ah arinkaas waxaa waaye dadka jecel walaalahooda ceebtooda inay faagfaagaan ayaan rabaa inaan ka hadlo oo jecel maxaa la dhahayay inay dadka dabagalaan qofkaas wuxuu qabtay iyo wuxuu sameeyey soo ogaadaan marka waxaan leeyahay walaaleyga qaaliga la socod wanaagsan hadda janalkeena soo dhaweeya haddii ilaahay awood badan ka raali noqdo macnaha qofka waxaan ka wadaa jecel maanta waxaa qabatay wixii maxaan ku iraadayay xumaantaada wanaagaaga wax walba inay ogaadaan jecel wax walba inay ku weydiiyaan jecel haddana rabaan inay sii gudbiyaan maxaa la dhahayay waxay ka dhigaan wax oo dadka dhan og yihiin wax yar ceebana hadday kugu qabtaan jecel inay sii faafiyaan ayaan rabaa inaan ka waaniyo caawo way naga buuxaan wayna badan yihiin dadkaas waxaan rabaa inaan dhaho walaaleyga qaaliga ilaahay ka cabsada oo maxaa la dhahay dadka ceebahooda faagfaagina haddaba ceebtooda ogaatiina astura inuu ilaahayga subxaana watacaala ceebtiina asturo waxaa jiro dad samaynayo maxaa la dhahayay qofkan siduu ceebtiisa kusoo ogaa lahay soo wareysanayo dadka dhanaa wada ceeb leh qofaan iin lahayn ma jirto maanta haddii maxaa la dhahayay uu qofkan intuu baxo qof kale dabagalo oo ceebihiisa soo ogaado muxuu ka faa'iidayaa hadduu ceebtiisa soo ogaadana hadduu qariyo ma dhimanaya waa maya hadduu sheego laakiin dembiyuu ka helaya waxaa dhahay hal ceeb ninka asturo 100 ceebaa ilaahay ugu asturaa marka waxaan ka wadaa qoftan maanta wuxuu sameeyo ilsiga ilaahay og ilaahay subxaana watacaala marka ilaahay subxaana watacaala maadaama uu ogyahay hadduu ka waran ilaahay wuu duubayaa maalinta qiyaamaha alla soo hordhigaa adduunyada intaa joogto dhan waa lagu duubayaa codkaagaa la duubayaa waxaa qabanaysaa la duubayaa wax maxaa la dhahaa wax akhrisaa la duubayaa haddaa wax dishaa la duubayaa haddaa qof xamantaa la duubayaa haddaa qof aflagaadaysaa la duubayaa waa canjarad adduunyadan maalinta qiyaamaha lagu soo hordhigaayo maalinta qiyaamaha haddii lagu soo hordhigo maxaad sheegi doontaa maxaa dhihi doontaa adoo walaalkaaga xamanaayo ama walaalkaaga dilaayo laakiin ay qarsoodi ku taho ummadda nebi maxamed ayna ku ogeynin salawaatullaahi caleyh qiyaamaha ilaahay kusoo hordhigaa laakiin ilaahay adduunyada kuguma ceebeynayo waayo adduunyada lagu soo hordhiga haddii ka waran hal daqiiqo oo ceebahaaga ka mid a adduunyada lasoo bandhigo naxdina u dhima lahayd marka waxaan leeyahay walaaleyga qaaliga qof walaashaa ama qof walaalkaaga haddaad ceebtiisa ogaatid astur oo ha faafinin oo ceebtiisa ha u naqanin macnaha horseed ha u naqanin dadkaa tusin ceebihiisa ha aflagaadeynin wax ha u dhimin qiimihiisa ha isku day inaa hoos u dhintid marka waxaan leeyahay walaaleyga qaaliga farxadda aan wadaagno farxaddaanu deeqdo farxaddaanu ugu filan laakiin haddaan is aflagaadeyno is jeclaano inaan is ceebeyno ceebahayna bannaanka soo dhigno farxad ma helaysid waayo biri waxaa naqanaysaa tii wareyda aheeda tii dadka ceebaha jecleeday macnaha inay fasirto meelaha gegeyso laakiinse haddaa qof walba ceebteeda asturto biri ka maalin weji farxad leh dadka kugu soo dhaweynayaan way kugu farxayaan intay ku arkaan waxay isku dayayaan xataa inay xogtooda kaaga waramaan ayaga hadal kula soo doonanayo kula sheekeysanayo culays kaa ridaayo macnaha qofka markuu wax qarinayo culaysaa saaran laakiin markuu inta kula sheekaysto culayska isaga kaa rido hasii qaadin oo 100 qof ha u sheegin wax iska iisii caadi waaye oo heblaasaan dhahday oo kaftan oo kale ama wax fududo wallaahi waan ka yaaba saasay samaysay waxaas waxa iska iisiya waxa maaha laakiinse qofkan inaad maxaa la dhahayay hadal kugu qarsado ama uu ceeba ku dhahay macnaha iga sii sheegin oo kaleete inaad sii sheegtid ma qurux badna saas aniga is leeyahay midda aan qabaano taasa
marka walaaleyga qaaliga waxaan ka waaninayaa wiilashii gabdhahaba qof waxay kugu qarsata weligaa ha qaadin, ceebaha dadkana ha dabagelin. inuu ilaahay ceebtaada asturo, ceebaha bili-aadanka ha dabagelin. ma fahamtee? ha jeclaanin wax walba inaad soo ogaatid, ha jeclaanin xog walba oo qof bili-aadan ku saabsan inaad soo ogaatid oo dabageshid. marka haddana wayba nagu badataba tii xan aheeda meel layska geelila ayaa hadda. fahamtee? tii xan aheeda haddana xanta geed maba lagula gambado. marka hore waaba la xishoo jiray, hadda qof walba kaamiradeeda soo qaadanay kaaga daran asaacadoo arkaysiday ku xamanaysaa. yaa kaamiraa lasoo qaadanaya. marka hore xanta saanaa dhihi jiri, laakiin hadda geed maba lagula gambaayo, iyadoo lagu xamanaya meel meeshaan ahaad ku arkaysa qofaa kaamira inta soo qaato oo daldalmaayo saan waaye oo leeyahay. waa qofka walaashkiisa beri wuxuu arkaya qof hoose waxba ka haleynin, kir dhihin, kac dhihin, weligiis xataa inay iska hor imaanin oo saas u kala fasiraayo arkaya. subxaan allah. war qiyaamaa naga dambeyso, qabriyaana sugaayo, meel ilaahay subxaana watacaala maahin aadni kaleeto oo nacaawiha oona jirin aana sugayso. qabriga qalocnaayana sugaayo qoryo ka hoos. marka walaaleyga qaaliga intaan waana iga tahay, waana qalbigayga ka imaaday oo si maxaa la dhahaye ilaahay subxaana watacaala horta dadka wato, ilaaha isoo dirsaday, intaana ilaaha afkeyga ka keenayo inaan walaalahayga ka waaniyo inay qof walaalkooda ah carabkooda ku dhibaateeyaan, gacantoodan ku dhibaateeyaan, inaan ka hadlo inaynan macnaha u geysan intaasoo dhan qof walaalkooda ayna ku dhibin. oo qofka wuxuu dhibaayo lama dhaho, qofka hortiisa inta la istaago wax uuna rabin lama dhaho. qofka waxaa ay dhihin hadduu ku yidhaa ha dhihin, wuxuuna raalli ka ahayn ha ku samaynin, ammaansiya. carada ilaahay waasicuu ka dhig ilaahay. carabkaagana ha laga nabad galo, indhahaaga ha laga nabad galo, dhigahaagana ha laga nabad galo. qofaada rabin waxay dhahaysa inaad dhegeysataa isku dayin. marka intaasna waxay iga tahay waano ilaahay subxaana watacaala ay haleeshiyey inaa intaan afkeyga ay kasoo baxdo, dad badanna ay kuwaana qaada doonaan insha allah inayna sameynin intaas. dad badanoo waxaa jiro aan hadda xasuusnaynin aqlile, laakiin aan xasuusnaynin intaas inay dembi tahay inay qof wax ka sheegaan, aan xasuusnayn oo jecelo ku farxa inay qof wax ka sheegaan. laakiinse waxaan qabaa aniga inaan qof wax laga sheegin, dadkana aan dhibaatin wax iska iisiya, qofkiina hadhowta wax ka dhibaynin, sharafkiisa dhaawacaynin, dadnimadiisa dhaawacaynin waxba maaha. laakiin qofka wax markuu maqlo uu naxaayo ha ka sheegin, ama qalbi jab ku imaanayo ha ka sheegin. marka walaaleyga qaaliga intaasaan raba inaan idinla wadaago. aadaan idin jecelahay, ilaahay idin jeclaado, aan isku xirnaano. bartaan waa barta kheyrka, qof laguma aflagaadeeyo, qofna wax lagulama dhimo. janalkeyga maasha allah. walaalahayga muslimiintana waa jeclahay, soomaalida aan ka dhasha aniga. waxaan leeyahay walaaleyga qaaliga mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay mar walba soo dhawaada. janalkeygana subscribe-ta iyo like-ta ha ka ilaabina, soo dhawaada markaste insha allah. hadduu ilaahay awoodo badan ka raali noqdana hadda jimco kasto iyo sabti kastana video ayaan soo dhigi doonaa hadduu ilaahay subxaana watacaala ka raali noqdo. waana waxgal leh, waxtar leh, maxaa la dhahaye nafteena ka hadlaayo, nafta walaalaheena ka hadlaayo. qof walba oo muslim oo dhageystana uu ka heli doono insha allahu tacaala. inaan isku mashquulin, inaan danaheena ku mashquulno, walaasheena aan ku mashquulin, walaalkeena aan ku mashquulin, danteena iyo maxaa la dhahaye guryaheena. iyo maadaama qofka xaas ah ilmihiisa iyo ninkeeda ku mashquulsha, wiilna sidoo kaleeto, wiilka hadduu ilmihiisa iyo shaqadiisa iyo gurigiisa ku mashquulo, qof kale kuma mashquulayo. laakiin intaas haysan waxaan leenahay allah siiyo naftiisa iyo maxaa la dhahaye ilaahayna cibaaduu noo keena adduunyada, ha cibaadeysto. qof walba markuu qofku mashquul isdhaho inta wuxuu soo weyse qaadato, 2 salaadood ha u istaago, ilaahay ha baryo inuu xumaha ka nadiifiyo qalbigiisa insha allahu tacaala. walaalahayga qaaliga dhammaantiin waan idin salaamaya. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.